kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta ku saabsan xildhibaanada labada aqal maanta ee ansixiyay guddiga doorashooyinka Jubbaland jawaab adag ayay ka bixisay ansixinta baarlamaanka ay maanta ansixiyeen guddiga doorashooyinka khilaafka dowladda Soomaaliya ee Jubbaland halka uu marayo iyo sidoo kale waawaantii laga dhaxwaday halka ay ku dambeysay ayaan idiin soo gudbin doonaa balse intaanu guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee soo booqatay subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like saarto si dad badan uu gaaro xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa ay markaasi kulan ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ay ku ansixiyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ama xuduudaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa xeerkan ku ansixiyay cod aqlabiyad ah waxaana ogolaatay in la ansixiyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka 173 xildhibaan mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay guddiga golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka markaasi gudoominaya ayaa sheegay in xeerkan la hor keenay xildhibaanada labada aqal uu yahay ansax ayna xildhibaanada u codeeyeen xildhibaanada labada aqal ayaa sidoo kale la filayaa in bishan inta lagu guda jiro ay ansixiyaan xeerar kala duwan oo horseed u noqon kara doorasho qof iyo coda oo ay doonayso Villa Soomaaliya in la qabto haddaba arinta doorashada markaasi ama qaabka loo wajahayo in doorasho qof iyo coda la qabto ama doorasho dadban oo khilaaf adag uu haatan ka taagan yahay ayaan waxaan isdul taagi doonaa mowqifyada Villa Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada qaarkood ay markaasi kala taagan yihiin sida badankiin la wada socotaan waxa in muddo soo jiitamay khilaaf xoogan oo u dhaxeeyay Jubbaland iyo sidoo kale Villa Soomaaliya Puntland horay ay u sii maqnayd waxyaabaha ugu waaweyn ee haatan la isku hayo ama Jubbaland iyo Villa Soomaaliya ay isku hayaan waxa kamid ah qabashada doorasho qof iyo coda madaxweynaha Jubbaland oo shirkii madasha uga soo baxay qodobo ay kamid yihiin in markaasi doorashada qof iyo coda aan laga dhigi karin iyo sidoo kale in Puntland shirka ay qayb ka noqoto iyo SSC Khaatumo ayaa wararka haatan aan helayno waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba ay fashilmeen waawaantii iyo wada hadaladii u socday Villa Soomaaliya iyo Jubbaland waxyaabaha ugu waaweyn ee guddigii waawaanta waday ay ku guuleysteen waxa kamid ah in dowladda Soomaaliya laga dhaadhiciyo in ay hakiso safarka ra'iisul wasaaraha uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo iyo sidoo kale ciidamadii ku diyaarsanaa garoonka Aadan Cadde ee markaasi qaybta ka noqon lahaa safarka dhanka kalena Jubbaland lagu qanciyay in ay ka qaado ciidamadii markaasi dheeraadka ahaa ee geysay garoonka diyaaradaha iyo hubkii markaasi lidka diyaaradaha inkastoo xaaladda si hoose loo dajiyay ayaa mar qura maanta haddana faraha ka baxday kadib markii qodobkii ugu weynaa ee la isku diidanaa ee ah ansixinta xeerarka doorashooyinka ee golaha shacabka ayaa waxa maanta markaasi mar kale uu cirka isku sii shareeray khilaafka Jubbaland iyo sidoo kale Villa Soomaaliya kadib ansixinta iyo sidoo kale go'aanka Villa Soomaaliya ee ah in dalka uu aadayo doorasho qof iyo coda Jubbaland waxa ay soo saartay war culus oo ku aadan qaabka iyo sidoo kale go'aanka Villa Soomaaliya ay u wajahday xeerka iyo sidoo kale in baarlamaanka ay horgeeyeen isla markaana ay ansixiyeen warqad ka soo baxday Jubbaland waxa ay u qornayd sida tan dowladda Jubbaland waxay markasta u taagan tahay ilaalinta dastuurka qawaaniinta iyo xeerarka u yaala dalka dowladda federaalka Soomaaliya waxay maalmahan dambe caadeysatay ku tumashada dastuurka xeerarka kale ee dalka u yaala iyo la tashi la'aanta dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya ee arrimaha masiiriga ah ee taabanaya masiirka ummadda Soomaaliyeed dowladda Jubbaland waxay mar kale cadeynaysaa in aysan qayb ka ahayn kana ahaan doonin xeerarka doorashooyinka ee sharci darrada ah ee aan heshiiska lagu ahayn ee baarlamaanka Soomaaliya isku dayo in la meel mariyo iyada oo aan xitaa kooramka u dhameystirnayn waxa xusid mudan in aqlabiyadda xildhibaanada baarlamaanka ee ku matala dowladda federaalka ee Jubbaland iyo Puntland aanay qayb ka ahayn kalfadhiyadii la hor keenay xeerka doorashooyinka qaranka talaabada sharci darrada ah ee maanta baarlamaanka qaaday iyadoo wada hadallo iyo waan socotay waxay cadeyn u tahay in madaxda dalka aysan diyaar u ahayn wada hadal isdhageysi is ixtiraam iyo tanaasul loo sameeyo ummadda Soomaaliyeed lana dhowro dastuurka
iyagoo caadaystay dhaqanka ah loo joojin maayo oo keenaysa qalalaaso iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo hadda sii xoogaysanaysa. waxa ayaan daraa in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay dhagaha ka furaysteen baaqyada iyo talooyinka siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed iyaga oo markaasi ay u caddahay waxa ay rabaan oo kaliya oo ah in labada aqal ee baarlamaanka ay marsadaan xeerar iyo habraacyo aan loo dhamayn. warkan ka soo baxay Jubbaland ayaa waxa uu markaasi caddayn u yahay fashilka ku yimid wadahadalkii iyo sidoo kale waanwaantii u dhaxaysay Jubbaland iyo sidoo kale filla Soomaaliya. waxaa la filayaa in madaxweynaha Jubbaland uu u safro Garowe si isaga iyo Siciid Dani halkaasi ay ugu kulmaan oo madaxweynaha Puntland isla markaana uu u sii xoogaysto xiriirkooda iskaashi ee markaasi siyaasadeed isla markaana ay u dhisaan iskaashi siyaasadeed oo markaasi ka dhana filla Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa in muddo ku adkeysanayay in xeerarka markaasi waa xeerka ansixinta gudiyada markaasi gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee baarlamaanka markaasi in ay si degdeg ah ku ansixiyaan. inkastoo muddo ay soo jiidatay waxa maanta xildhibaanada labada aqal oo wada jir ah ay ansixiyeen xeerkii Xasan Sheekh uu doonayay. dhanka Jubbaland maxaa laga filan karaa maadaama fashil uu ku soo dhamaaday wada hadalkii iyo waawaantii laga dhaxwaday? Jubbaland oo horey ugu dhawaaqday guddi doorasho isla markaana guddiga ay iska dhex doorteen gudoonkooda ayaa waxaa la filayaa in ay soo saaraan jadwalka iyo habraaca doorashada Jubbaland. waxaana lagu wadaa in waqtiyadeena soo aadan saacadaha ama maalmaha soo aadan in ay ku dhawaaqaan jadwalka doorashada maadaama dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabo ay markaasi ka caroodeen Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. madaxweynaha Jubbaland oo dhowr jeer oo hore ka hadlay arrimahan waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay markaasi isku dayayso in ay baalmarto dastuurka isla markaana ay ku dhaqmaan xeerar markaasi aan munaasab ahayn oo iyaga u gaara. haddaba wararka markaasi aynu ka helayno magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in laga dareemayo qabaqaabada doorasho ka qabsoonto magaalada Kismaayo xilli ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo xubno mucaarad ku ah maamulka Jubbaland ee uu markaasi madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam. wixii warar ay ku soo kordho arrimaha cakiran ee siyaasadeed ee ka dhex taagan filla Soomaaliya iyo Jubbaland halkan ayaad si toos ah ugala socon doontaan.